الله بحين كذب من محاكو قران دونا أبو يلي إلهي سبحانه وتعالى إلي هذا الكلام تليفون سحور أسافيو أسأل بلاحي صوتين وشوي وهكذا تليفون سحور أسافيو أسأل بلاحي صوتين وهكذا تليفون سحور أسافيو أسأل بلاحي صوتين وشوي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي wanaagsan khiyarta qiimaha badan ee hawada nagala socotay meel kasta aad joogtaan halkan waa telefishinka qaranka Soomaaliland Ramadaan Kariim kullu caam wa antum bikhair waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo barnaamijka Kasmaal oo hadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliland barnaamijka Kasmaal si joogta ayaad xilligan oo kale habeen kasta uga daawataan telefishinka qaranka Soomaaliland inaga oo bisha Ramadaan inta ay socoto aan ka qayb galayaan tartamayaal fara badan oo ku tartami doona lacag dhan 3 milyan oo shilinka Soomaaliland sidoo kale waxa iyaguna barnaamijkan ka qayb gali doona sanadkan ka qayb qaadan doona qaar kamid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha dalka oo iyaguna barnaamijkan nagala qayb gali doona qaybihiisa dambe hadii aan la yiraahdo barnaamijkan oo telefishinka qaranka Soomaaliland iyo shirkadda isgaarsiinta ee Samtel si wada jir ay ugu soo gudbiyaan waxaanu ku casuunaa dadyoogii 24 saacadood ugu dambeeyay shirkadooda telefoonada isgaarsiinta Samtel lacagta ku shubta si miiskan u yimaadaan kuna guuleystaan lacag dhan 3 milyan oo shilinka Soomaaliland waxa sidoo kale iyagana noo yimaada dadweyne fara badan oo stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliland ugu soo booqda dadkaasi oo dabcan ee ka qayb qaatayaasha barnaamijka iyaguna caawin doona laba jeer oo kamid ah waqtigooda si ay markaasi uga caawiyaan garashada su'aalaha markaasi intii uu garanayay dhaafta dadweynaha muraayada naga daawanaya meel kasta ay joogaan iyagana waxaan u soo gudbinaa weydiinta aan ugu tala galay inaan u soo gudbino weydiintaasi oo warcelin ay ku sameeyaan kadibna ay ku guuleystaan hadiyado kala duwan oo markaasi mobilaa sanadkan waxay ku guuleysan doonaan flash 4G taasi oo noqon doonta hadiyadaha aanu siin doono oo ka mid noqon doonta sanadkani meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Kasmaal kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale sidii barnaamijka aan tilmaamay martabadaasi dheer ayaa barnaamijka la mari doonaa ka qayb qaatayaasha hadii uu garto 10 su'aalood waxa uu ku guuleysan doonaa lacag dhan 250,000 oo shilinka Soomaaliland hadii uu garto 15 su'aaloodna waxa ku guuleysan doonaa 750,000 oo shilinka Soomaaliland hadii uu garto 20 su'aaloodna waxa ku guuleysan doonaa 1,500,000 oo shilinka Soomaaliland su'aasha 22aad oo markaasi noqonaysa ta u dambaysa ayaa 3 milyan oo shilinka Soomaaliland noqon doonta weydiinta dadweynaha aan soo weydiin doono iyagana warcani waxa ay ku soo sameyn doonaan lambarka 822 oo fariin gaaban xagga dambe ayaan dabcan uga sheegi doonaa qaabka ay u soo diri doonaan marka su'aasha aan weydiino hase yeeshee ugu horeyn barnaamijka hadda waxaan u yeedhi doonaa ka qayb qaataha barnaamijka ee Ramadaantan kow ka noqon doona inuu barnaamijka ka qayb galay nasiibkiisu soo xulay waa Cabdiraxmaan Aadan Jaamac loo saabiyo السلام عليكم عبد الرحمن آذن جامع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسو دو تلفزيون قرية Soomaaliland iyo shirkadda isgaarsiinta ee Samtel aad iyo aad baan ugu عبد الرحمن آذن waxa tahay qofkii ugu horeeyay ee bisha Ramadaan barakaysan barnaamijka Kasmaal ka qayb qaata kana soo qayb gala aad baan ku soo dhaweynayaa ugu horreyn waxa tafaasiil naga saalka aad degan tahay inaad arday tahay shaqo kale waxaad qabatay aniga daawadayaashaba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عبد السلام baad mahadsantahay telefishinka qaranka Soomaaliland iyo shirkadda Samtel ee soo qabanqaabisay barnaamijkan quruxda badan bil kasta oo Ramadaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa haye waxaan diganay kama fogi ilaacada radio Hargeysa waxaan diganay iskuulka Beercay ayaan diganay magaalada Hargeysa xaafada 26 صح arday baad timsaa hawlka beerta bana ma sha Allah xaga dhigata jaamacada عبد الرحمن برنامجنا هو دعوتين كذا برنامجka Ramadaan hore aad iyo aad baan la socday daawan jiray
haye bal waxaad ka warantaa markaasi marka aad barbar dhigto maanta waa markii ugu horreysay ka soo qayb gashay mise hore barnaamijka ka soo qayb gashay markii ugu horreysay miis ka soo fadhiisatay intaasoo jeerna waxaad ka daawanaysay guriga bal waxaad ka warantaa halkan fadhigeedana maanta aada xoogaalo waa gurigana aada xoogaalo markaad guriga joogtay horta su-aalaha soo baxaya sidee ahaaya kolley cabdirasaaqo way kala duwan yihiinoo qofku markuu xaafadda joogo waxaa laga yaabaa su-aalaha badankooda inuu garto ma garanaysa si fiican wuxuu odhan lahaa dad halkaa fadhiya lahayd waxa laga yaabaa inaad ku carareed gari hore laakiin halkan marka qofku soo fadhiisto kolley way ka yara duwantaan isleeyo waxa laga yaaba qofku inuu yar khalkhale moogti kamaradii iyo hawliyo wixiiba culeyskeeda dabcan cabdiraxmaan su-aalaha soo baxaya dhaqanka hadday yihiin diinta hadday yihiin kuwa kale ee aqoonta guudba hadday yihiin sideed u aragtaa su-aalaha qaabka ay usoo baxaan wallaahi runtii su-aaluhu aad iyo aad bay ayay u wanaagsan yihiin waxay isugu jiraan dhaqan diin su-aalo generaala runtii si fiican baa loo soo diyaariya baan aaminsanay jaraanjartaa dheer baynu cabdiraxmaan uga warrayn fuulaynaa oo sidaan tilmaamay haddaan tuma su-aalood garanno waxa weeyaan 25kaas 250,000 shilinka somalilan haddii aynu 10 garanana waxa weeyaan 750,000 haddii aynu 25 garanana waxa weeyaan milyan iyo badh hal su-aalo waxaa jira 3 milyan ka dhigaysa waxaad laakiin aada u xasuusnaanaysaa 2 jeer oo ka mida su-aalaha kusoo bixi doona min labaan kaa tuuri doona haddii aad kaadaan 2 jeer oo kaloo ka mida waxayna caawin doonaa dadweynaha haddii alla yidhaahdaan waana markii ugu horeyso cidda kaa dambayso dhan way soo dhiiranaysaa halkaynu gaadhin awaad isleedahay haddii aynu soo yar kulalayno insha allah haddiiba 3 milyan aynu gaadhno oo 6 sano uu soo socday 2 sano sanad marka laga reebay inta kale wax 3 milyan gaaray xitaa 15 kaana isla gaadhin haddii 3 milyan aynu gaadhno 3 milyan shilinka somalilan maanta jeega arsa kugu qoro kuu dhiibo see u maarayn lahayd kolley cabdirasaaqo waxa weeyaan qofku markuu waxaad gacanta ku dhigan buu qorshaha keena ma garanaysaa marka waxa weeyaan kolley shorti balaan iyo long balaan buu yiraahdaa inshallah waxaan ugu horeeyaan ka bixin lahaa shaqada ugu horeeyaan inshallah dadweynuhu laba kamid ah ayna caawiyaan iyagana waxay inuu dhiibi lahayd kolley inshallah sidaaba u sii buurnay 3 milyan Soomaali kolley waxaan aaminsanay cabdirasaaqo inay su-aalaha lacagtay ka miisantay aqoonta guud ee aqoonta laga faa'iideysanay halka absolutely waa tan ba aaminsana halka waxaad garanaysaa ma soo bixi doona wixii aad garan weydina guul darro ma aho maanta aqoontaadii ka faa'iideysan bismillah أول رمضان أول سؤال سؤال كوادر رمضان تا قف كوادر رمضان تكتشواب الدونا إيه سلا رمضان تنقون دون تا إيه داود ياش سؤال شو صبيح الدونا سؤال كواد واحد كورنا سائق مرايد كور الله عبد الرحمن أصحابك أقول تبضنا أحاديث النبي جوا أصحابك أقول تبضنا أحاديث النبي جوا ب بخاري تا أبي هريرة ش مسلم ح إمام الشاعر عبد الرحمن بسم الله لكن النبي قال سورينا أي حديث كذا بسم الله سؤال سواء تاء أبو هريرة ما فيها تاء أبي هريرة لما تشيروا أمي لما كاتورو هي لما تشيروا ددوينها يوكار سنة إن شاء الله وإن كوات كيسن دونا كوات كيسن سنة inuu ahaa ta oo abi hurayra ku adkaysanaysa go-aankaaga u dambeeya saasaa ku adkaysana bismi illah su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay yaa cabdiraxmaan xabadii kowaad iyo su-aashii kowaad ee ramadaanta intii maa isla garanay su-aasha labaad goodku waa nooc ka mida goodku waa nooc ka mida ba abeesada ta shinnida ja maska xa aboorka asagoo labaga turma laba ka mida ayaan kaa saari doonaa waxaa isku soo hadhay ja oo ah maska iyo xa oo ah aboorka su-aasha jawaabteedu waa ja oo maska ja oo maska weli dadweynaha mar u dhiibanaa malayn aboorka ma garanaysa isaga ay aboorku dee waa halkan yari duma dhisa ma garanaysa maskuna waa markaa goodku waa nooc ka mida ku adkaysanaysa waa hagaag daawadeena su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa su-aashaasi waa sax
yaa cabdiraxmaan saddex nebigii hadalka ka soomay saddex cisho waa nebigii hadalka ka soomay saddex cisho waa ba nebiyullaahi yuusuf ta nebiyullaahi ciise ja nebiyullaahi ayuub xa nebiyullaahi sakariya بسم الله سؤال waxaan filayaa inay xaq tahay oo nabiyullaahi sakariya xa nebiyullaahi sakariya yaa cabdiraxmaan saddexna waynu maraynaa aada u xasuusnow in laba jeer dadweynuhiina caawin doonaan hal marna aan kaa tuuri doono ku adkaysanaysa marka waxaad leedahay waa nebiyullaahi sakariya marka maxaa soon ramadaan buu ka soo yimisa maya hadalka oo suuratu waxaan filayaa suuratu maryam in ahayd inuu ilaahay ku sheegay qur-aanka ayad qur-aan bay ku filayaa waa hagaag markaad ku adkaysanaysaa go-aankaaga u dambeeya nabiyullaahi sakariya ku adkaysanaya xa uu nebiyullaahi sakariya ayaynu wadeegi doonaa su-aashaasi waa sax yaa cabdiraxmaan saxdaata suuratu maya inaanu bashiruka qulaamin ismuhu yaxya markii nebi yaxye oo nebiyullaahi ilaahay weydiisanayay nebi sakariyullah ilaah awlaadi siiya maryam u arkay kadib baa ilaahay yidhi waxaan ku siin doonaa in sakariya la yidhahdo isaguna cid hore loo bixin kadibna maxaan ku garan doonaa buu yidhi ilaahba subxaana wa tacaala yidhi hadalkaa kaa xidhmi doona lakiin digriga ilaahay un baad wadaysaa waa sax su-aasha afraad iyo cabdiraxmaan magaalada yarowe waxa ay ka tirsan tahay magaalada yarowe waxa ay ka tirsan tahay ba gobolka saaxil ta gobolka togdheer ja gobolka awdal xa gobolka sool بسم الله سؤال waa ta oo gobolka togdheer ta oo gobolka togdheera yaa cabdiraxmaan waxaad aada u xasuusnaataa inaynu meel xasaasiya ku dhowno kala barhkii iyo oga harsan tahay hal mid fursado badanna inoo harsan yihiin ku adkaysanaysa su-aashaan si fiican baan u adkaysanayaa yarowe miyaad aragtay burca berigeeda waad aragtay mise waad maqashay mee adigu maan arag laakiin waa sii badantay hargeysa intada dhaaftay xaggan marka loo kaco bariga horta burco waan gaaray ilaa burco dheeraysa galbeedkana galbeedkana buuramaan gaaray buuramaad gaadhi wax yar baa ku waarsanay dad badan baa dhaantay inkastoo dhul badan xaggaa kaa xiga shisheen go-aankaaga u dambeeya cabdiraxmaan waan ku adkaysanaya cabsago ku adkaysanaysaa togdheer waa hagaag daawadayaal ta oo gobolka togdheer ayaynu wadeegi doonaa su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay dad badan reer yarowaa wayna daawanayo aad buu saxaabinaya togdheer moogta shan kala barhkii baynu soo gaarnay shan geedka cayadu waa geedka cayadu waa geed ba hadheed ta midhood ja hoosaad xa qodaxeed بسم الله su-aasha cabdisaaqa waxaan filayaa inay tahay ja oo geed hoosaada ja oo geed hoosaada cabdiraxmaan cayada horta miyaad aragtay waan arko inta badan waxay ka baxdaa waan filaya cabdisaaqa meelaha degelada maarta degelada inta badan ka baxda cayadu geedkeeda imankaa dhanaan buu lahaa baan u malaynayaa marka dadka qaarkood waa saladka waa sida khudradoo kale miya geed midhood geed hadheed markaa waxaan filaya inay jadaa tahay waayo waa geed yar magarasa lugga ku dhegsan geed hoosaad aada u xasuusna cabdiraxmaan inaynu shan marayno oo meel xasaasiya marka la eego kala barhkii lacagta aynu taaganahay weli dadweynuhu laba jeer inoo harsan yihiin hal marna inaan laba kaa tuuro waan ku adkaysanaya asagoo ku adkaysanaysaa ja oo geed hoosaadaad ku adkaysanaysaa saasaan ku adkaysanaya waa hagaag daawadayaal su-aashaasi jawaabteeda aynu wadeegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha lixaad cabdiraxmaan maraayadda koortaaleeg waxay ku odhanaysaa qolooyinka sekada la siiyaa waa qolooyinka sekada la siiyaa waa ba 8 qolo ta 9 qolo ja 7 qolo xa 6 qolo بسم الله su-aashaasi waa ba oo 8 qolo
ba oo sideed qolaa ya cabdiraxmaan aadan xaggii lacagtaynu ya dhaqaana lix baynu maranaa dadweynuhu arsan yihiin maskaxdana aada u tuushi isaaqow aayad quraan aad ilaahay ku sheego marka wasdeed ma sha Allah marka aayadaas maxay odhanaysaa aayada wallahi ma xifdisnay laakiin waa suuratul baqara ku jirta oo filayna marka waxaan wasdeed hortaan hubin isdeed sideed waa ku adkaysanaysaa si fiican إنما الصدقة للفقراء والمساكين والقاربين عليه وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل هذا ستة قلب سديد ولا تطبع المرأة ستة أسبوع في سنة سديد وهجاك داوي يرساش أساين وذيك دونا جواب كذا بأو سديد قلاء أما سديد نوعه سلا أساي يستحقوا تاي مركنا هذا اللي وصعب يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن هذا يرفكر مال وناس من مرنا تضبين مرنا صدح سؤالات بينه غير إننا صدح لبين تكثر منه وناس وبيجا قارض يوروب قدر وحلو يقان وبيجا قارض يوروب قدر وحلو يقان با جرس تا كوردف تا فولجا ح فيانا ساقو سواشا انت قريب الافضل ميل حساسي انه مرنا تدوينها مكو يغنا ان تدوينها وبيغا يربدين ما تو دينوري ان قار يوروب كيما انه كدخلو وبيغا كدباشay bada waa suuragal dad badan ba Yurub taga dalkeena xagga daawadayaasha inuu celina waa hagaag daawadayaal waxaan iman doonaa dhankiina meel xasaasi ah wanaagsan baan soo gaarnay waa markii koowaad aanu si wada jir ugu baahano aniga iyo Cabdiraxmaan su'aasha toddobaad ayaan idin baahanaynaa su'aasha toddobaad waxay dooranaysaa wabiga qaaradda Yurub ugu dheer waxa loo yaqaan wabiga qaaradda Yurub ugu dheer waxa loo yaqaanaa garas ta kordaaf ja folga ha fiyaana imise qof ayaa leh waxa ay sax ku tahay ba oo markaasi ah garas aad ugu fiirsataan imise qof ayaa leh waa ta oo waxa weeyaan kordaaf imise qof ayaa leh waa ja oo waxa weeyaan folga imise qof ayaa leh waa xa oo waa fiyaana waagaag aada ugu fiirsa Cabdiraxmaan isku soo noqono ilaa 20 qof in ka badan waxay nagu yiraahdeen waa xa oo ah fiyaana afar qof oo kamid ah waxay nagu yiraahdeen waa ja oo waa folga ana meel xasaasi runtii marka la eego laakiin anoo badide gacantay wada taageen ma weydiin cid ku soo dabaalatay cid kale ku jirtay laakiin badan taariikhda ku baran karaan oo ku jiraan wuxuu dhan laakiin markii la isku wada geeyay waa soo jeedin adaa gudoomiyaha meesha codka fiitooda loo yaqaan ma garanaysaa saaqow adaa iskale su'aasha block raacayaan haddii Cabdiraxmaan uu su'aashaas aan ku raacno oo markii ugu horeysay aynu u baahanaa ay tahay ayna qaldaan ka waran waxa weeyaan kullay diyaanada dalbado dhiibtay ma garanaysaa marka wax eeda ku yeelan maayaan wax eeda ku yeelan inta garanaynin bay dhaaftay xumaan kama laga yaabo haddayna saxaana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waa hagaag daawadayaal xa oo fiyaana ayaynu wadeegi doonaa su-aashaas oo dadweynaha aanu dhiibnay kadibna ka soo warceliyeen sidaasi qalad ay ku tahay saddexdaa qof ama afar qof ayaa ku saxsan aad iyo aad lagu saacido aad iyo aad waa hagaag daawadayaal waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaataha labaad ee barnaamijku waxa weeye Ismaaciil Ibraahim Cabdillaahi Ismaaciil Cabdillaahi loo saaxiibay السلام عليكم إسماعيل إبراهيم عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسو دو تلفزيون كقرن كسومالي لان برنامج كسمال ودوه عبد الرزاق إسماعيل إبراهيم وعن تفاصيل قصة الأرض هاي الكا دقنت يعني يدا ولا شيء معلومات كذا أرض ميه أرض مخا وحنا دقنا حافظة كم ده هرقيسة حافظة عبي
ismaaciil inaad barnaamijkan hore u daawatay iyo in kale waan daawaday in badan cabdirasaaq barnaamijkan in badan baad daawatay barnaamijka marka aad daawanaysid macluumaadkiisa maxaad is leedahay dabcan sidee u aragtaa wuu fiican yahay barnaamijku aad buu fiican yahay xagga dhaqan ahaan su-aalaha la isweydiinayo hadday noqoto kuwa diinta dhaqanka aduu wax dee aqoon cid kasta ay wax ugu kordhayaan ismaaciil waxaad aad u xasuusan tahay inaynu jaraanjartaa dheer marayno oo 10 su-aalood oo ka mid ah su-aalahan ku weydiin doono haddaad garatid 250 kun oo shilinka Soomaaliland aan heli doono haddii aan 10 ka mid ah garanno waa 750 kun oo shilinka Soomaaliland haddii aynu garanno markaas 20 su-aaloodna wax weeyaan milyan iyo badh hal su-aalo milyan iyo badh jira 3 milyan oo shilinka Soomaaliland ku guuleysana waxa si aad u xasuusnaataa laba jeer oo ka mid ah inay dadweynuhu ku caawin doonaan haddii ku adkaato laba jeer oo ka midana mid labaan ka tuuri doono inaan ku bilaabana diyaar baad diyaar baan waaye bismillaah muraayada koorta leeg su-aasha koobaad nabigii qoomkiisu dabka ku rideen waa ba nebi yoonis ta nebi idriis ja nebi ibraahim xa nebi ismaaciil cabdirasaaq haddaynu su-aashaa isku dayno inagoo bisinka ku bilaabayna bismillah ibraahim nabiyullaahi ibraahim nebigii qoomkiisu dabka ku rideen ha nebi ibraahim baa inay laba jeer dadweynuhuna caawiyaan oo inoo harsantay in laba jeer laba kaa tuuran waynu sugaynaa dadweynahan insha allah ku adkaysanaysa nebi ibraahim waa hagaag daawadayaal jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa oo nabiyullaahi ibraahim sidaasi ayay sax ku tahay ismaaciil su-aasha labaad ma geelii baa arooro oon ku raagay ma naaskiibaa gabloodo godol ka weyday heestan waxaa loogu heesaa ma geelii baa arooro oon ku raagay ma naaskiibaa gabloolod godol ka weyday heestan waxaa loogu heesaa ba caruurta ta ragga ja dumarka xa maqasha ma geelii baa arooray arooro oo ku raagay marka hore ya waxaan arooraya horta marka hore waa geeli xaggan dambena ma geeli baa arooray arooro oon ku raagay ma naaskii baa gabloolo godol ka weyday haddaynu isku dayno wax filayaa inay maqashaa tahay maqashii oo noqonayso dee dhowr qaybood iyada laftirkeedu kala baxaysa maqashii tii geela maqashii dee nurgihii oo kale noqonaysaa markastoona sii kala saareen marka caruurta iyaga maaha waa maqasha saasaan filaya xa oo maqasha waxaad aad u xasuusnaataa in laba jeer dadweynuhu ayna caawin doonaan laba jeer oo ka midana aamin laba kaa tuuri doono aada uga fiirso su-aasha ma geelii baa arooro oon ku raagay naaskiibaa gabloolood godol ka weyday xa oo maqasha inay tahay fursadda aad u dambaysaa ku siinayaa laba jeer inaan dadweynaha la tashanno ayaa inoo harsan haddaynu sii xaqiijino in laba fiit ka dhigno waa okay ku xaqiijina intaasaanay ahayn xaqiijin caadi intaas waa hagaag laba ka mida ayaan kaa saari doonaa xa oo maqashiya doorataya iyo ba oo caruurtiya caruurta marka loo heesay maxaa la idhaha caruurta heese kale leedahay waa maqasha ayaa dilay oo dagaalay iyo duur kulul ku jeexay waa maqasha ma geelii baa arooro oon ku raagay waa maqasha cabdirasaaq ayaa dilay oo dagaalay ayaa duur kulul ku kasta iyagu heese badan yeelanayaan laakiin kale dee xoolaba arooreen waa maqal baa meesha soo gelaysa ku adkaysanaysaa waa hagaag daawadayaal xa oo maqasha aynu markaasi wada eegi doonaa jawaabta su-aashaasi aynu wada eegi doonaa sidaasi qalad ayay ku tahay waa ba oo caruurta aada iyo aada looga sacadiyo Hello.
Somtel ayana hayo Somtel Darurahan sabeeyayo Somtel Surunki kasto idila Somtel Sikin baan ku gaarayo Somtel dadku way sugayayo Somtel Isa cabtumayayo Somtel waan saacidayaay waagaag daawadeen mar kale ayaan kulanti wanaagsan idin leeyahay waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaataha saddexaad ee barnaamijka ka qayb qaataha saddexaad ee barnaamijku waa Khadar Faarax Bootaan Khadar Faarax Bootaan loo saabiyo waagaag assalaamu calaykum Khadar Faarax Bootaan عليكم السلام عبد الرزاق ku soo dhawow barnaamijka Kismaal هذه أنا دوي عبد الرزاق Khadar kulanti wanaagsan marka ugu horeysa waxa tafaasiil iga siisaa aniga iyo daawadayaashaba Khadar in arday tahay halka aad degan tahay iyo wixii macluumaad ay kala أنا قلت أدميه haye إن واحد جانا هلكن إسكيسك حراو haye محافظة حراو اللي يقانو رئيسنا جانا sida degan tahay Khadar in barnaamijkan hore u daawatay iyo in kale برنامجنا ها دور شربنا ناوضي ودي رمضان والبوين داون شريد haye barnaamijkan بالمعلومات iska waran من السولاي أدبو نسيات بناهم بليها شركة الصنفية تلفيش كخرنا تشوف السمل wadaag barnaamijkan macluumaadkii janjada dheer marna waad ka waraysaa laakiin inta fadhinayna macluumaad fara badan ma kaga baxay waxaad aad u xasuusnaataa laakiin laba jeer dadweynuhu ina caawin doonaan laba jeerna aan min laba ka tuuri doono waana ku bilaabi doonaa insha Allah Khadar bismillah su'aasha koowaad magaalada badan waxa ay ka tirsan tahay gobolka magaalada baran waxa ay ka tirsan tahay gobolka ba salal ta maroodi jeex ja awdal ha sanaag marka loo eego lixdii gobol ee waaweynaa hore أرجع السوق كل قول كابرن دايم في قمع صباح رمضان ما haye لكن لما قول بس كي غلطنا والسؤال يسناقو كل السؤال ويفك تحنا ما كمان ترسنا مركا وحنا نسيب سنة يا حدو سناقة ha sanaaga ها احنا لو xusnaataa inaan laba jeer laba ka tuuri doono doonin in caawin doonaan ونحسنا ku adkaysanaysaa ها waa hagaag xa oo sanaaga ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad Khadar kitaabkii ugu dambeeyey ee soo degaa waa kitaabkii ugu dambeeyey ee soo degaa waa ba samuud ta tawraad ja furqaan xa injiil يا خضر أشياء دان اسكو دايو 50 كاري كتابك القرآن كان يمكن آخرنا وي كان ودن بيسمع كتاب كم ودن بين يقول ها سوبر سوبري وهذا لما كان مذا أيام كاسار دونا شاء أو فرقان يحق أو إنجيل اسكو سؤاله شاء دان كل كسنة يا فرقانا شاء أو فرقانة كوات كسنة فرقان القرآن فرقان شو دواني سوا يا اسكو ديني كان شيء هذا ما رسم كان فرقان بس سنة أسكو دي سنة وهذا الدولة شاء أيام مركز سوى ذيك دونا فرقان سواء جوابته سوى صح صدق shimbirta shimbiraha ugu dheer xagga jooga waa shimbirta shimbiraha ugu dheer xagga joogu waa ba xuurta ta qudunquduntada ja goroyada xa xaydha yaa Khadar hal mar inaan laba kaa tuura iyo laba jeer duwayaan warsid laakiin shimbiraha xuurta wada aragtay هاي وانا هركيو xuurta wada aragtay حط ما هركيو ay كلي تم قاعدين برمك الله الحس تقو
wala shibra meesha dowladda waxay yiraahdaan xur baa halka maraysaa ama bad ku dhex jirtay wala qoordhe qodon quutadana wada aragtay qodon quutadana waxa kama garanay laakiin shibta waxay dhaleeyaan ma qalbo ay iyagu cusub gorayadana waa maqasho soo aragtay gorayada ma aragtay gorayada gorayada laftigeeda gorayadana kulli yahaayo kulli miyiga dadka markay tagaan wada dhowr jeeraan miyiga tii kulli dadka reer miyiga hadii miyiga ka soo jeedin marka xilliga fasax la galo markaas miyiga la iska tagaa marka taana iminka aan sugayn meeshan ku arkay taana waan arkay haydana waxay dhawaan ku sheegay taa mana maqal mana arag waan gartay waxa la maqal mana arag marka mana maqal mana arag marka su'aasha waxaan u dhiibanayaa dadweynaha in qaarka laga helo waa hagaag daawadayaal xaggiina ayaan usoo noqon doonaa haddii la yidhaahdo saddex baan marana annaga iyo khadar inaad nacaawisaanna waan u baahannahay su-aashu waxayd odhanaysaa shimbirta shimbiraha ugu dheer xagga joogu waa ba xuurta ta qudunquuntada ja gorayada xa xaydha imise qof ayaa leh waa ba oo waa xuurta aadna uga fiirsada mar horena qof baynu qaadnay marka dambe yaan layna xidhxidhina aada uga fiirsada waa hagaag imise qof ayaa leh waa ta oo waa qudunquutada imise qof ayaa leh waa ja oo waa gorayada imise qof ayaa leh waa xa oo waa xaydha aan isku soo noqono yaa khadar waad arkaysay badi dadkaasi waxaynu ku idhahdaa waa gorayada dhowr qofna waxaynu ku waa xuurta laakiin waxaa fara badan dadka aynu ku yihi gorayada haddii aad ku raacaysa laakiin iyaga waxoodo dhan waa soo jeedin haddii aan laba kale ka atuuray haddii aad bedelanaysa markii dhaweyn toddobaanu maraynay annagii cabdiraxmaan aadan jaamac markii koowaadona baana markii xaggeed u codaysa horta martii anigu dadka qardibeen u qodeeyo aniga laftigaygu baan iska raacay kulli qaar badan saaxiibada aan iska raacay adna waa gar markaa inay deena qaldaan hadday doodaan aga aqoonta way kugu dhamaan baa laftigaygu haddayna qaldaan ka waran imiga intuu baa iska soo badisay adna mar baad haddayna qaldaan dee kulli iyagu waxaan malayaa isma laha qalday inta garanayn bay dhaaf inta garanayn bay haddayna saxaan ka waran haddayna saxaana way nagu hambaliyeen way gorayada in gudaan adna gorayada inaad aragtay baad ii sheegtay malaha mar baad aragtay soo ma ahayn kulli gorayada waa aynkeed bahal dheer soo dheer weeye iminka waxba kama xasuusto kulli waqti badan baa iminka ka soo wareegay markaa kulli gorayada ala ayad xaal sawaynu jeedaasoo gorayada ama ku nasanayaa ku nasibsan haddayna saxaan ka waran haddayna saxaana dee waa nagu hambaliyeen hadii kulli waa wadaad saxaabtida ku jirta kulli dee dadku waa walaalahayo kulli iyaga isma laha saa qaldan waan filayaa dee markay horeyna qaldaan mar haddayna qaldaan waa ujeedaynu yar moodaynaa waqti inkastoo aad badee daacad ka ahay oo akaad noo soo adgeysa kulli jeeda kama markaan macaanigu soo raacay waa hagaag daawadayaal ja oo gorayada ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaas ayay sax ku tahay aad bay mahadsan su-aasha afraad boqorkii masar xukumi jiray xilligii nebi yuusuf xaaskiisa waxaa lo odhan jiray boqorkii masar xukumi jiray xilligii nebi yuusuf xaaskiisa waxaa lo odhan jiray ba maryama ta sulaykha ja balqiisa xa buhayra ya khadar bootaan qisada nabiyullaahi yuusuf waa leysaa soo maaha suuratu yuusuf baa ka warrama nabiyullaahi yuusuf waan hayaa walaalihii baa ceel ku riday kadib qolo safaroo socota ceelkii ka saartay boqorkii haystay dalka masar ayaa laga iibiyey boqorkiina gabadhiisaa ku tiri inoo daa inan kan yaraynu haysano markii dambena iyada laftigeeda qiso dheer baa dhex maray iyada iyo nabiyullaahi yuusuf calayh salaam marka haweeneydaasi afarta mid ka mid ahayd waxaad oga xusnaatay in laba jeer laba kaa tuuri doono laba jeerna dadweynuina caawin doonaa siyaasha dadweynahan ku xushanay mar laba dadweynahan dhibna mar laba waa hagaag daawadayaal dhankiina ayaanu iman doonaa haddii aan la yidhaaho
أنا ويدي ما هالعلنا مركو رسالة نعاوسان أنا يخذ مركنا إن نعاوسان أيان وباهنا سؤال واحد ورنسا بقر كي مصر حكومي شري حلقي نبي يوسف حاس كيسا وحل أوران شري بقر كي مصر حكومي شري حلقي نبي يوسف حاس كيسا وحل أوران شري با مريم تا سليخة تا بلقيسة ح بحيرة إمي سقف أيال وحل أوران شري با مريم إمي سقف أيال تا وحل أوران شري سليخة تقول في الصف إمي سقف أيال له وحل أوران شري تا بلقيسة إمي سقف أيال ح وحل أوران شري بحيرة وهاجاج دي بس وصل نقول يا خضر إن خضر بديت كاسي waxay nagu yidhaahdeen 16 oo ka mida ta oo Sulaykha bay nagu yidhaahdeen 15 qof oo ka midina waxay nagu yidhaahdeen waa ja waa Balqiisa Maryam iyo Buhayrana waa laga aamusay go'aanku sawaadiga aad bay isugu dhow yihiin waa Sulaykha iyo Balqiisa hal qof baa la isdeeyay كل dadka badidooda saashay sheegeen kul qof taariikh horta meel buu ka hayaa marka taa ugu badan yihiin ayaan raacaya taa ugu badan yihiin raacsan hal qof oo kaliya filaya abad xabas madaaro isku dhow yihiin Sulaykha raacsan yaa Sulaykha raacayo kul dadka ugu badnaa sidaas yiraahdo marka waa ku adkaysanaysaa ku adkaysanaya haddii ay dadkaas yana qaldaan ka waran haddayna khaldaana mar hore ay caawiyeen kul mar hore ay caawiyeeno kul waxa la yiraahdo haddii xumaartimo hadda waraagii hore kiilo hadday Balqiisa sax noqoto qoladaasi tirada yar leeyagana ka raali gelinaysa ka raali gelinaysa ku adkaysanaysaa marka ta oo Sulaykha ayaynu wadeegaynaa jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay mar kalena aada lagu sacadiy dadkaa tirada yare ina caawiye waan siganay moogtay su-aasha shanaad kala barkii baynu soo gaadhnay abujahal wuxuu aabti u ahaa su-aasha shanaad abujahal wuxuu aabti u ahaa ba cumar bin khadaab ta sacad abi waqaas ja cali ibnu abi daalib ha cismaan binu cafaan أبا جهل واد قرنا سما ما بقى شرط أبو جهل أبو جهل يا هو المغلي لكن ما دركت لك من ما رك ما أنت تعرف بهايو ساقو محمد يكا أي أبو جهل محمد يرد هرك تيمك ويرتي ويرتي بسبب من والله كل ويرتها كلها هذا إنه شاينا كل دد ما وين باي من خنوره إنه قرنا نضي أي وين هي نحى شرابه ودقني منك نحى شراب دورابه وأركب وشال بلقيها كل ها كانوا عرقنا دانو عرقنا سوينا سمو كرنايا استغفر الله وين أبو جهل وقال وين وقت قلنا محمد بن نولا أصحابته مع النكاركي مع التابعين تودا رجل لكن ده قصص كيسة يرسوا قاري ما وقته قال أبو جهل marka inaga waxaan uga soconaa Abu Jahl Umar bin Khattab isaga garana sawan malayna Umar bin Khattab kali hayo day waxa Umar bin Khattab أصحابها سعد أبي وقاص نود قرنا سنا أصحابها كل علي بن أبي طالب سنا أصحابها عثمان بن عفان سنا أصحابها خلفاء الراشدين واسدها سنقدين رجل ويسر كان أبو جهل مركها أفرتن أصحاب ميت كميدو معناه سيدا كلا ولا شيء ده الشيء أبو جهل ولا شيء بعد الشيء مركها أبو جهل ولا شيء ما واحد الشيء عمر بن الخطاب بن يقول سعد أبي وقاص علي بن أبي طالب عثمان بن عفان dadweyne ma wayna ka dhamaadeen ma malaynaya kulli dadweynaha wayna ka dhamaadeen ina laba ka tuurana mar bayna ars maskaxdan oo dhamaanayna inoo taalaydna kala iska tuur maskaxdaynu dib u noqon doonaa dawla laba iska tuurda laba asxaabi ayaa ka saari doona
لبا أبتو ما هي لبا أصحابي وعسوسو هاريبا عمر بن الخطاب يا عثمان بن عفان شغل عثمان بن عفان صحابي وين لو ذكرنا يدي عثمان بن عفان ملايكتنا عمر بن الخطاب أصحابي وين ولا قرنا أيوه هاي بن الخطاب لكن لبدو عمر بن الخطاب وحوها أميركي خليفة كل هذا عثمان بن عفان وحوها كيس الضحاذو حلقة وكلا دنبيين لكن تاسوا تاريخ ذودي لكن لبدا مدبو أبتوها هذا نقول يدي عمر بن الخطاب كسين نصيبنا با عمر بن الخطاب ما كنا نصيبنا أي عثمان بن عفان محمد قتمي عثمان بن عفان ثم واحد بالبيئة كل يا كان قال سكر في زمان مقلد أو تبى قفوا هاي ما محيته بتشال بوها مقرن صعب أبتوها كل مرة كلا بدون إنتان مقل كان نصيب كي كان قاضي يا عمر بن الخطاب بن الخطاب قوان كقدم بيا خضر فارح بوتان كان قدم كان نصيب كي كان يا عثمان بن عفان ده عثمان بن عفان بعد بقول نقولسه وعمر بن الخطاب كتقنا عمر بن الخطاب كتقنا أيوه يرستشي والله أصحابي متكملوا سواء في لي لبض بد قرن ما ينميدو أرتوها أرت إلهي بأقسمها إلهي لكن تاريخ عادي جاء قف كدكتور وقرن يا عمر بن الخطاب عثمان بن عفان وقرن يا أنا رجل الخلفاء الراشدين هاي أنا عمر بن الخطاب وهانين دينته وهذا ذاك وقتي الإسلاميين إنه هرج مكك بحي هرعد عمر بن الخطاب مركا عثمان بن عفان إن ما القبيان أبوها يسوون رجي وقت فربدن دين الإسلام كجريب وها خلفاء الراشدين كخليفة في صدحات بوها مال فربدن بوجليه عمر بن الخطابنا وقت فربدن فاروق بالله حبوا كلا قيبي لبلا أصحابه ولا ما أصحابه وشريرو تاريخ وين كل مركا لو إيجو أمة المسلم كأيو أساس جد دبتاجي يو جرجاري النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أخيرا نقول ضمبين قوانا كنا خشلاين عمر بن الخطاب كينو كده عمر بن الخطاب كنا سيف وقدم بين وهذاك دولة عمر بن الخطاب بين يجي دونا وقدم بين وبا عمر بن الخطاب سلاسة يسحق تاي وري خضر وين السجن هذا اللي صعب خضر سؤال شلحاد وبيجا وقدر أدونك وبيجا وقدر أدونك با وادي خير تا ميسي سيبي شا جنانة ح نيلكا خضر أفتح نقول سعودة قوانا روجا قال تدويني وين قدم ماذن أنا الله بكات تورانا وين ماذن لكن خضر بوطانون دمانين بعد شوقه بس كحد يصير شغال نسان وبيجا النيل وبيجا النيل حق وبيجا النيل كواد كسنسا وبيجا النيل وهجاك داود الحق وبيجا النيل عين مركز سوى ذيك دونا سؤال جواب تدين وذيك دونا سلا سلا يسحب يا خضر تضبع من الحساسية اللي سوق عني وسوق دواني تضبع haddii reerku neef qasho cadka inanta adhiga raacda gaar loogu dhigaa waa haddii reerku neef qasho cadka inanta adhiga raacda gaar loogu dhigaa waa haddii reerku neef qasho cadka inanta adhiga raacda gaarka loogu dhigaa waa ba garab ta tagoogo ja shansho ha misig حامسيجا حامسيجا أريك مرة على مودي كل هوا رعيو أيه إنن ما لنا مورك تبدأ إنن تاريك أبلا راعي تكلي لو دقنا أنا ما حسوسنا أيه كل هذه حوالي بدي لكن هذا مسيك بدو دقلا هذا بدو دقلا سلا دقلا لو بدي بلا كل هاي أريك مسيك بدو دقلا هايو وايو حامسيك تقول دقلا سبرقة تنيه مسيك
kan sababta waxaad maranaysaa waxaad ka weyn ku yala kale dee magarasa ku maqan xooliina waad garanaysaa dee tamarta ku baxday marka inantu waa misig xadka gaasho garabkii misigta ka jeceshaado ma garabka iyo misigta jecesha nimeeru garabkan jecelo kale misigta garabka jecesha misigta inuu cadhableed yahay kale filayaa inta maxaad garab sii weyday garabka hadda jecesha iyadaaba xaq loo adhigi raacday adu ala yidhaqow garabka kulli raga cunay ku dheereeyay marka garabka ku soo gaari mayso qolka hore yaraa waxaan garanaya dadku yiraahdo odayga u raacay odayga garabka u raacay garabka marka waa cadkii odayaasha la isku taaban maayo isaga iyadoo isku taaban maayo kulli xaajiga ayna leeyahay xaafada shanshadana ka waran shanshada hadan ku garabka ma meesha kaga taalo shanshada meel kaga waan maqlay tagoogta xaga kaga taalaasano kale tagoogta lafsigeed tagoogta waa garabka oo halkiisa hoos adu garab iyo misigta u dhigay ha oo misiga ku afkisansa waa hagaag daawadayaal ha oo misiga ayeen wadeegi doonaa jawaabta su'aashaas ayeen wadeegi doonaa sidaas ay sax ku tahay markana aad lagu saabiyo ilaa ninka waa 8 waxaan iska soo luluudnaba qofkii ugu sareeyay imka intaan soo marnay baad 8 uu ciidan ma gaan 8 ereyga sunaari waxa loo adeegsadaa ereyga sunaari waxa loo adeegsadaa ba adhiga ta fardaha ja geela ha lo-da ta oo fardaha dadweyniina weydiina inaga dhamaadeen inaan laba kaa tuuraan inaga dhamaatay maskaxda dhawaan baa soo hadhay ku adkaysanaya fardaha kulli inkasta aanan ood iyo gel iska ka qaldan inaan labadaa dee midna raacay hay adiga maaha baad leedahay sida hubta lo-dana maaha ta oo fardaha ayaynu wadeegi doonaa insha allah iska adkayso intaasay si khayr la noqotaa insha allah ta oo fardaha ayaynu wadeegi doonaa su-aasha jawaabtaasi ayaynu wadeegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay waliya hadar bootaan meel xasaasiyan soo gaadhin waxaan soo lulduudaba 9 su-aashan markaaynu ka gudubno waxaynu u gudbaynaa su-aashii lacag tahay su-aasha 9aad su-aasha 9aad waxay ku odhanaysaa shinnidu dhirta ay malabka ka samayso 40 geed waxa ugu fiican shinnidu dhirta ay malabka ka samayso 40 geed waxa ugu fiican ba maygaaga ta jiica ja jinowga ha dibowga yaa khadar cabdiraxmaan oo halkaa marka la soo noqdo shinnida malabkeeda waa cuntay soo maaha malaqay laakiin kolley anigu dhagxaan baan kala baxay dhir kalama bixin hoyaa wariba wanaagsan baa sheegay dhagxaad ka xuntay kan gaabuurka meelaha lagu sameeyay mooyaan cid dhagax xuntay way yartay ka dhagaxa ugu fiican xageed meesha dhagaxaad ka goosatay meesha dhagaxan goosatay kulli way miyiyo kulli horta magaalada wax kuma badna oo iska garanaysa cabdirasaaqo damiiga fara badan miyiga dhagaxan baa weyn loo kulli horta miyiga bari aanu baxay anigu lama soo bixin walaal soo saaro dhagax laga saaray ardal kool gusiyo iyadoo dhagax laga saaray leeydun baad cuntay waxa asaasi miyigan ka sare kala dhunyaalo wax ka sameeya miyiga ka sameeya marka labadaas aan maleenayeen inay sameeyaan tay kulli malabka marka miyigan ku hadkaysanaya ba oo miyiga الحساسية نمرنا مسكحة هذا توجي شنيدو ديرتا أي ملبك كسمة يسوع فرتن جيد وحا وقفي عام بقى ميجا تأشيدا جا جوجا حا ديبوجا ويتشي عين تأذوتشي عين وسن تأوتشي ها الحساسية نمرنا بقى ميجا قابين في النماذج تأوتشي عابين نماذج hayo oo ciicaabeen imanana ciica ma aragtay haa waan arkay dhiro laakiin weli ma arag malab liyo laga soo saaray ama malab ku jira ma arag yaa khabar go'aankaaga u dambeeya taado ciica
meel xasaasi aynu maranaa go-aankaaga u dambeeya jiicaas saan ku nasibinaya ta oo jiica 9 tobanna waa lacag jeegaas aynu ku qoran inkastay maanta jeega lasoo yar weyneeyey qofka ugu horreeya jeega lacag loogu qoraa loo baahan yahay 9 waynu maranaa fikir markaa maskaxda tuuja yaa khabar waktina waynu ugu socdaa waya migaaga inoo daa migaaga baan ku noqonaa ugu dambeyntii migaaga saan ku nasibsanaya waagaag daawadayaal ba oo maygaaga ayaan wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi oo xaasaasiyin wadeegi doonaa sidaasi qalad ayay ku tahay waa xa oo ah dhibowga aad iyo aada lagu sacabiyo meel fiican si fogaana aad iyo aada lagu sacabiyo وهجاك داود يال كنا تي وناكسن أيام مركلة يدلنا هاي وحن أدوكم هذا علنا كقيب قاتياش برنامج كان كقيب جلية طبعا ما أنت بالرتاح دي الله يراهدو أيين هالك كسي أم بقعد الدونا أو برنامج طبعا كسي ترتمياش كسي قيب جلي دونا أصيل شيء قبل برنامج كأيان هذا سوق جاني وحنا سوق جاني أمين تي دوينها كل الدون مرايد شاشة نقد داونا أيام مهرده هذا جوابك جناحسي ميل كستوي شوغان أو يدين توسو قد بيش إنك دي بنور علين أي كسو سمين شلين سؤال شو واحد يدورنا ساعة قرآنك دحديث الله وحو يسكو دارتي قرآنك دحديث الله سبحانه وتعالى وحو يسكو دارتي با 6 ميلود تا 7 ميلود جا 8 ميلود ح 9 ميلود مركل أنكو علي الداوديال قرآنك دحديث الله سبحانه وتعالى وحو يسكو دارتي با 6 ميلود تا 7 ميلود جا 8 ميلود ح 9 ميلود daawadayaal warcelin ayaad ku soo samayn doontaa waxaana jawaabta fariin gaaban xa ba ta tahay aad ku soo qori doontaan lambarka gaaban ee 822 ayaad ku soo diri doontaan jawaabta idinkoo qoraya xarafka ba ta ja ku sax ku yahay wax kale oo fariinana ma raacin doontaan kadibna insha Allah maalinta berita ayaynu halkan ku eegi doonaa qofkii ka soo jawaaba hadiyana aynu guddoonsiin doonaa aynu markaas ugu tala galay haddii alla yiraahdo barnaamijkan ka xiga maalinta berita isla goobtan isla waqtigan iyo telefishinka qaranka Soomaaliland inta ku kulmi doona meel kasta aad joogtaan Ramadaan Kariim waxaan aad ugu mahadcelinaya akhyaarta ka qayb qaatay iyo dadweynaha kale ee gula sugan telefishinka qaranka Soomaaliland iyaguna dabcan ka jawaabay su'aalaha caawinayna asxaabta ka qayb galaya waxaan iyagana ugu dambeyntii aad ugu mahadcelinaya akhyaarta magacyadooda xagga dambe ka soo bixi doonaan ee barnaamijka ka qayb qaatay kuwaasi oo magacyadu xagga dambe ku qoran yihiin qaybaha kala duwan ee baahinta iyo akhyaarta ka qayb qaataba inta ka horeysa Ramadaan Kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh كدي تلفوندا لا تلاصنيسي عصريدا انترنت كدايلو تصلو هلايو وتكنولوجي ادونكي